qodobkeena maanta bisha ay tahay 8 bisha Febraayo 2022 qubanaheena maanta qodobka koowaad oo clipkan aan ku duubi doono ayaa wuxuu daaran yahay Garbaharey iyo 16 kursi oo yaala oo wali cagajiida. haddaba su-aashan isweydiinayno waxa weeyaan ma qarax kale siyaasadeed oo nuclear oo kale siyaasadeed ee ay sababto magaalada Garbaharey in laga doodo kadib markii de muddo badan ay caqabad ku lahayd dawladda ku roon yahay siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliya. waxaan ognahay sanadkii hore Febraayadii hore in lagu isku soo qaaday ay sababtay in ay doorashada Soomaaliya in badan la xigto oo in badan la iska daba jiitamo kadib markii shirarkii ka dhacayay magaalada Dhuusamareeb ama Samareeb 1 2 iyo 3 mid ka mid ah lagu falanqeeyay in meesha magaalada Garbaharey laga dhigo xarun deegaaneedka labaad Jubbaland ay ku qabanayso doorashada. waxay soo jiitantaba hadeertaan iminka la taagan yahay weli Axmed Madoobe iyo tiimkiisa ee fadhiidka ku ah magaalada Kismaayo waxay naawilayaan in magaaladaas mar kale ay u qarax siyaasadeed ay halka ay ka ridaan kadib markii in badan lagu soo qaraabanayay Farmaajo ayaa tolkii u hiilinaya. Farmaajo ayaa wuxuu noqday madaxweyne qabiil oo tolkii ayuu madaxweyne u yahay meeshu Soomaali u doodi lahaa waxyaalo badan oo dawladda ku roon yahay jiray ayaa hadeertaan waxaa socda in mar kale la isticmaalo magaalada Garbaharey oo in aan lagu qaban karin doorashada waxyaalo noocaas la wado. waxaan dhawaan maraan fogeyn waxaa safiirka Ingiriiska halkan u joogtay islaanta Foster la yiraahdo waxay booqasho arrinta ay ku xalinayso ama uu kurgalaysaba ay ku tagtay magaalada Kismaayo ee Axmed Madoobe oo fadhiga u ah. waxay isku soo hadal qaadeen oo lagu canaantay in deegaan doorashadaas uu Axmed Madoobe dhaqaajiyo maadaama asaga awood loo siiyay inuu guddiga doorashada uu asagu soo diro iyaduna ay sheegtay in meesha AMISOM la geyn doono oo ciidanka halka ay tagi doonaan sidaas la mid horena loo sii geeyay muddo aan markaas sii fogeynba toddobaad ka horba qalabkii doorashada Garbaharey doorashada ka dhici lahayd 16 kursi oo golaha shacabka. Axmed Madoobe in badan wali waa ka sii jiitamaya mar walba uu isleeyahay fursad ahaan way soo bixi kartaa bari maadaama caqabad laga dhigi karo taasna wuu ku naawilaya asagoo u daneynaya ama ay gadaal uu ka riixay ninka la yiraahdo Danni oo u sharaxan la xishoonaya inuu waliba ku dhawaaqo banaanka iskeeno maadaama uu og yahay musharaxnimadiisa inaysan dhab ahayn oo ku reedinay ra'iisul wasaare kaliya. waxba yaan qodobka ku sii fogaane halka waxaa lagu wadaa in la sii geeyo halka waxaadna ogaataan oo cid walbana ay og tahay in maamul dawladda dhexe hoos yimaada iyo ciidan xooggan oo dawladda dhexe hoos yimaada inay ka taliyaan halka oo Axmed Madoobe iyo barnaamijyadiisa waa hor u dambeysay kadib markii in badan oo isku dayay asagoo Cabdirashiid Jaran asagoo adeegsanaya inuu Kenya soo dhex maro dhulka xuduud beenaadka ay haysato halka lagu ciidan in badan lagu aruurinayay laba goor halka ay soo weerareen dhalinyaradii uu soo abaabulay labada goorba lagu jabiyay ciidan inkastoo kugu dhimay kaana dhimay uu ahaa oo anagu dhib badan ugu ahayd haddana colka wuxuu noqday gugac gadaal u jabay oo dowladnimada Soomaaliyeed ayaa halka xoogeysatay. meesha la yiraahdo magac ahaan ayuu iska tirsadaa meesha la yiraahdo Axmed Madoobe gedo hase ahaatee maamul ahaan uma hoos imaato ciidan ahaan uma hoos imaato siyaasad ahaan uma hoos imaato bulsho ahaan uma hoos yimaadaan waxwa macnaha wax uga xiran maalinta magaca ayaa kulliba hadda ninaas ahaan ay u sitaan oo leeyahay gedo waxay ka tirsan tahay haddii la kuriyo Garbahareyba Jubbaland. mustaqbalkana waxa laga yaabaa in meelo kale lagu soo daro oo la yiraahdo koonfur galbeed oo kala raaciyo oo ayada naftirkeeda gobolka Shabeellada Hoose laguba haystaba. qodobka ayaan haddii la ku roon yahay hadda taagan oo doorashada laga yaabaa inuu caqabad ku noqon karo doorashadiina way socotaa hadeertaan 100 xildhibaan iyo jarjar waa la doorto golaha shacabka aqalka sarena waa kasii horeeyay hase ahaatee Axmed Madoobe ayaa wuxuu isticmaali doonaa haddii la ku roon yahay qodob siyaasadeed magaalada Garbaharey sababtoo ah 16 kursi ayaa halka taal
asaguna dee awood uma laha hadduu xataa maamulka Soomaaliya ciidanka iyo awooddaba waxa weeyaan dhankan ayay ka imaanaysaa maaragta hadduu alla kuu rooyay halkaana waxba uga ka faa'iidi maayo wax ka soo gelaya dee ma jiraan inuu qabto uu axmedooba doorashadaas maamula 16 kursan la farmaajo u soo baxdo waa inta meesha loo socdo keliya khiyaaray idin salaameynaa sii shargareeya oo qolalka u qaybiya السلام عليكم